ستريم ويجي افلام تفهم بروج افلام اوكلي كوبايكي maxaa kaloo ku sidar meesha wow live tv ستريمنكس waxa kaloo ka daawan kartaa aflaamta Hollywood Turkish iyo waliba cartooniska ستريمنكس waxa kaloo u sidar silsilada waayaan laga daba dhacay silsilada Turkida Hindida Mareykanka iyo qaar kaloo badan ستريمنكس dhalinyarta sportiga ah waxay kaloo u diyaarisay kanaalooyinka sportska ahaa sida kanaalooyinka Bein Sport, Sky Sport, Super Sport iyo qaar kaloo fara badan hadaba ستريمنكس waxaad kala soo kartaa Google Play Store, Apple Store iyo waliba Android TV ستريمنكس waxay caan ku tahay idegso isla hadda idaawo kaloo soo booqo website-ka streamnexus.tv wixii macluumaad dheeraad ah nagala soo xiriir telefoon nambardan shaashada kuugu qoran السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن لما صاحبة كوحنا جانا كسبنا كيستو اوفيشال فضلنا هدي تايمر كورس جانا كسو بغطو سبسكرايب نو صار كامبلال كنفرو سيمر كستا كوسو كالان والبحنا الحساب بدنا كنا كوسو قدبينو هدي أدونا نو جوكتي وكو محسن تاي سي أمر ربنا ما جان قادو فضلنا مقال كاليك نو صار سيدو كنا سيشير قرسي ومقال كو قارا صاحبة بدن ونكو محسن تاي برنامج كرمات وحا كوسو قادن إن أفلام عصوب كوا سو مركز لغيلي دنكاسي كوفور هندية haddii aan ku bilowno filimka lagu magacaabo Spy oo hogaamiye ka yahay Nikhil Siddharth filimkan waa filim xiiso badan markaa noqon doona Pan India movie oo markaa hogaamiye ka yahay xidiga markaa hadda soo caan ninka lagu magacaabo Nikhil Siddharth filimkiisii ugu dambeeyay waxaa filimkii Kartikeya 2 kaas soo baxay 13 Agoosto filimkaas oo noqday all-time blockbuster sidoo kale ganacsi ballaaran la sameeyay sidoo kale bandhiga heerka sare oo actor-ka ka sameeyay sidoo kale aad lagu amaanay sidoo kale filimka ganacsigiisa waqooyiga Hindiya ganacsi fiican ayuu ka sameeyay sidoo kale filimka hore ee Kartikeya waxa lagu kharash galay ku dhawaad 15 karoor sidoo kale box office-ka filimkaas waxa ka soo xareeyay ku dhawaad 120 karoor sidoo kale hadda filimkiisa cusub ee ku dhawaad lagu magacaabo Spy kaas oo lagu daawan doono luqadaha kala duwan ee Hindiya haddii noqon lahayd Malayalam Telugu iyo Kannada sidoo kale Hindiya lagu daawan doonaa waana filim xiiso badan markaa isugu jira fariimaha sirdoonka sidoo kale filimka tarshikood waxa lagu dhigay lagu magacaabo Aishwarya Menon ayaa filimka tarshikood ka noqonaysa halka Nikhil Siddharth filimkan hogaamiyaha filimka noqonayo halka filimkan director ka noqonayo Gary PH oo markaa inta badan sameeyay filimada Telugu filimkan Pan India movie ay noqonayo xidigan maadaama filimkiisa ugu dambeeyay ee lagu daawado luqadaha kala duwan ee Hindiya sidoo kale filimkiisa ugu dambeeyay waxa caawiyay sheekada filimka wanaagsan sidoo kale filimkaas waxa buunbuuniyay Hindida markaa xajiriinta oo markaa inta badan filimada laga hadlayo dhaqankooda Hindida marka laga hadlayo hadii qolada filimka Kashmir Files oo soo baxay bishii Maarso kaas oo noqday sida hadda ganacsiga uu heerka sare u sameeyay Kartikeya 2 mid la mid ah filimkaas sameeyay soo xareeyay ku dhawaad 300 karoor haddana filimka Kartikeya 2 soo xareeyay ku dhawaad 120 karoor ilaa 150 karoor ganacsiga u dhaxaya haddana waxa la filayaa filimka Spy inuu ku qabsan doono Hindiya idil maadaama filimkan loo dhigay qaab heer caalami ah filimkan loo sameyn doono sidoo kale filimkan waxa lagu dhawaaqay in marka la daawan doono 13 November 2020 bisha 11 ee filimkaas ee qorshaha in marka tiyaatarada la saaro ama marka xidigan tiyaatarada la saaro sidoo kale xidigan akhbaarta kale ku cusub waxay tahay inuu marka ku dhawaaqay filimkiisa cusub ee lagu magacaabo Staton Pages filimkan hore u dhawaaqay wuxuuna ka horeeyay filimkiisa hadda lagu magacaabo Kartikeya 2 ka horeeya filimka lagu dhawaaqay in marka la daawan doono sidoo kale filimkan xiisaha badan waxa tarshikoodka Anubhav Parasuram waxa digta horaada filimkii hore la sameeyay Kartikeya 2 ayaa isla filimkan la sameyn doonta sidoo kale filimkan waxa director-ka ninka lagu magacaabo Pranav Surya ayaa filimkan director-ka halka muusikada qoraayo Gopi Sundar oo markaa ah muusikista ugu caansan ninkaas Telugu sidoo kale filmo badan agaasimay sidoo kale filimkan xisaab badan waxa qorshaha in marka la daawado 4 bilood foodan ugu saaysa balse filimka qorshaha waxa in marka la daawado September 9 jimcihii hore ayaa filimka qorshaha in la daawado balse filimkan waa baaqday dib ayaa loo dhigay maadaama xidigan filimkiisa wali markaa tiyaatarada uu saaran yahay oo markaa filimkiisa Kartikeya 2 ganacsi ballaaran tiyaatarada ka sameeynaya sidoo kale filimkan xisaaban Staton Pages oo filim markaa iskugu jira fariimaha jacaylka ee markaa romantic ama comedy iskugu jira halka filimkan director ka yahay Pranav Surya Bartad sidoo kale shirkadda Gayatri Arts ee filimka Pictures ayaa filimkan maalgelinayso halka Sukumar oo markaa sheekada qoray ama sheekada filimkan qoray sidoo kale filimkan xiiso badan markaa uu hogaamiye ka yahay Nikhil Siddharth oo markaa lagu daawanayo luqadda Telugu oo kaliya maadaama filimkan loogu talagalay in markaa lagu daawado luqadda Telugu oo kaliya sidoo kale filimkan sheekaysa hadii wanaagsato markaa filimkan tiyaatarada ganacsi ballaaran ayuu ka sameyn karaa maadaama actor-kan xiiso loo qabo sidoo kale filimada ugu dambeeyay xidigan noqonaya filim blockbuster oo markaa darajo fiican gaaray
sidoo kale filimka dhowr jeer oo kala duwan ayuu baaqday balse hadda filimkan waxa shaaca laga qaadi doona xilliga rasmiga la daawan doono waxayna u badan tahay bisha December in marka la daawan doono ama October labada bil ay u badan tahay maadaama bisha November uu soo baxay filimkiisa Spy ama waxa u badan tahay filimkiisa Spy marka in dib loo dhigi doono ama afarta bilood foodan ugu soo haysay marka la daawan doono filimkaas lagu magacaabo State of Babies oo marka fariinta jacaylka xambaarsan yahay comedy ama shaatirada asxaabta in khilsad inta ay ka cusub labada filim cusub ay ku dhawaaqay waxa ka soo kordhana waa la soo siin doonaa si marka la socdo YouTube channel-kana subscribe saaro si markaas ay muuqaalada xisaab badan ku soo gaaraan saaxiibada qiimaha badan filimkeena xiga soo qaadanayna waxa lagu magacaabaa Ironboy Kaimega fi waxaana hogaamiyaha superstar caanka Surya Sifa Kumar halka filimkan director-ka ama agaasimi doona ninka lagu magacaabo Lokesh Konrad oo marka director saameyn badan sidoo kale filimkiisa ugu dambeeyay waa Fikram oo marka hogaaminaya Kamal Hassan Suryana muuqaal martiya kula hadda filimkan xiga ayuu ku dhawaaqay Lokesh Konrad ayaa marka agaasimaya filimkan oo lagu magacaabo Ironboy Kamai waxaana hogaamiyaha looga dhigay xidiga superstar caanka Surya Sifa Kumar maadaama waqtigiisa uu fiican ku jiro sidoo kale bandhigii heerka sare oo ka sameeyay filimkii Fikram aad loo amaanay sidoo kale qaybta labaad ee Fikram 3 oo marka hogaamiye oo marka door dhameystiran ka qaadan doona filimkan oo ku matalayo sidoo kale filimkan wali shaac laga maqaadan tirshada marka ka qayb noqon doonto filimkan sidoo kale filimkan waxa la daawan doona April 2024 dib ayaa loo dhigay maadaama Lokesh Konrad 2023 uu diyaarinayo filimka Fikram 3 iyo Kaithi labada filim markuu soo dhameeyay qorshu yahay marka uu bilaabo Ironboy Kaimega oo hogaamiye ka yahay Surya Sifa Kumar sidoo kale filimkan waxa dhawaan shaac laga qaadi doona xidigta marka ama tirshada filimkan ka qayb noqon doonta waana filim xisaab badan Surya ku soo laaban doono Surya maalin dhow wuxuu ku dhawaaqay filimkiisa 42 ee marka hogaamiyaha ka yahay sidoo kale filimkaas waxa director-ka Sifa oo marka director marka aad ku awood badan marka la joogo dhankaas fanka Tamil sidoo kale filimka waxa tirshada looga dhigay gabadha lagu magacaabo Disha Patani ayaa filimka qayb ka noqonaysa filimkan waxa xiga marka Surya 42 lagu magacaabo waxana noqon doona ban India movie Surya ku qabsan doona India maadaama xidigan uu marka noqday superstar marka aad loo jecel yahay sidoo kale filimada marka ugu dambeeyay dhawaanaha sameynay aad lagu amaanay bandhiga heerka sare ka sameynaya hadda noqon lahayd filimkiisa JFM marka heerka sare bandhigiisa ka sameeyay aad lagu amaanay iyo filimkii Fikram 3 marka heer caalami marka uu ka sameeyay sidoo kale qaybta saddexaad la sugayo marka laada awood badan uu ku matalayo haddana filimkan xisaab badan ayuu marka ku dhawaaqay lagu magacaabo Ironboy Kaimega fi sidoo kale 2023 waxa soo bixi doona filimkiisa hadda oo Surya 42 lagu dhawaaqay 2024 filimkan ayuu diyaarsan oo Lokesh Konrad uu director ka yahay asxaabta Surya intaas ay ka soo bixi ka soo qoreen oo actor-ka inuu socodsiinaya muuqaalkan xiga marka waxa ku soo qaadanayna filimka lagu magacaabo Birimaaka Danta filimkan waxa hogaamiye ka Allu Sirish halka gabadha lagu magacaabo Eno Emmanuel marka tirshi kuwaad ka tahay xidigan waxa la dhashay superstar-ka lagu magacaabo Allu Arjun ayaa marka walaalihiin sidoo kale filimkan xisaab badan waxa hogaamiye ka Allu Sirish oo marka shaashadaha ay ka maqlaan dhawaan waxa ugu dambeysay filimkiisa 2019 la daawaday kaas oo lagu magacaabo filimkiisa ABCD marka la daawaday sanadii 2019 ayaa filim xidigan ugu dambeysay Atlanta sidoo kale filmo badan ayuu sameeyay sidoo kale actor-kan 2013 ayuu marka filimkiisa ku soo biiray fanka waxaana ka qaatay filimkiisa lagu magacaabo Gorafam horena carruurnimadii wuxuu soo qayb qaatay filimkiisa lagu magacaabo Preference oo marka uu la sameeyay Venkatesh actor-kan wuxuu noqday actor marka xidiga marka ka soo muuqda filimada Tollywood-ka sidoo kale bandhiga heerka sare oo ka sameeyay filimadiisa ugu dambeeyay hadda oo ka kaashina 2017 la daawaday iyo sidoo kale filimkii 1970 Beyond Borders oo la sameeyay Mohanlal aad ayaa lagu amaanay bandhiga heerka sare marka la sameeyay ninka lagu magacaabo Mohanlal oo marka shaashada kala soo muuqday taas oo marka actor-kan uu ahayd guul weyn sidoo kale filimkiisii xiga wuxuu filimka lagu magacaabo ABCD oo marka bandhiga heerka sare ka sameeyay marka shaashada marka faraha la soo galay marka actor-ka lagu magacaabo ku xifaaltameen ninka lagu magacaabo Sirno ay ku xifaaltameen filimkaas bandhiga heerka sare ka sameeyay aad ayaa lagu amaanay sidoo kale fariinta marka siyaasadda filimka wadatay aad ayaa sheekada loo helay oo marka filimka waxa la siiyay ku dhawaad IMDb rating-ka filimkaas waxa la siiyay ku dhawaad 7 xidig hadii ma ku qiimeeyay 10 xidig ee filimkaas sheekadiisa aad ugu wanaagsaneyd sidoo kale filimka hadda marka uu ku dhawaaqay lagu magacaabo actor-kan ee lagu magacaabo Birimaaka Danta waa filim isku jira fariimaha shactirada marka hamada loo dhigay sidoo kale fariimaha romantic ama jacaylka filimkan oo ku jira maadaama xidigan inta badan filimada oo sameeyay marka ay yihiin filmo comedy marka shactira sidoo kale filimkan aad ayaa loo qurxiyay marka lagu soo biiray marka ninka lagu magacaabo aan ilaahay waxa director-ka ninka lagu magacaabo
Rakesh Shashi marka filimkan directorka sidoo kale filimka 27 November 2020 tiyaatarada loo saari doonaa waa 27 bishii 11 filimka tiyaatarada la saari doonaa asxaabta filimkan waxa ka soo kordhan oo la socodsiin doona wixii marka trailerkiisa la soo bandhigi doona fadlan haddii aad muuqaalka heshay like noo saar waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.